waxaynu sii wadi doonaa tallaabooyinkii aynu kulmo mid qaadaynay ee ka mid ahaa 8 tallaabo aynu sida fiican ugu baran lahayn cryptocurrency-ga. maanta waxaynu halkan qaadi doonaa tallaabadii labaad oo aynu ku baran doono waa maxay wallet, waa maxay exchange, walletyadu noocay u kala baxaan, sidee loo ilaaliyaa walletka, exchange fiican sidee loo doortaa. su'aalahaas oo dhan aan kaga jawaabi doono insha Allah videogan. waxa kale oo videogan ku jira walletyada ugu wanaagsan oo ilaa 3-4 ka sheegi doono iyo exchange-yada ugu aaminsan ee ay tahay inaad lacagtaada ka dhigato saad cryptada ugu bedelato. hamogaaneen haddaba aynu ka bilowno waa maxay walletku. walletku waxa weeyaan boorso ama khasnad aad ku haysato wixii aad crypto soo iibsatay. marka walletkaasi wuxuu leeyahay address aad kaga soo shubi karto cryptada. qof hadduu doonayo inuu crypto ku soo diro kaaga soo diri karo sida sad number-ka oo kale. wuxuu leeyahay markaad qof lacagii soo dir leedahay adiga sad number-kaaga siiya ama number-kaaga telephone-taad siisaa. markaasuu number-kaaga intuu geliyo lacagtii ku soo dira. walletkuna address buu leeyahay. address-ka crypto kasta oo aad haysataa address u gaaro wax looga soo diro ayay leedahay. marka bitcoin oo kale maanta haddaad haysato oo aad doonayso in bitcoin kale lagu soo diro, bitcoin address-kaaga ayaad u diraysaa qofka kuu soo diraya lacagta. haddaad ethereum doonayso, ethereum address-ka ayaad u diraysaa qofka kuu soo diraya lacagta. qalad baa halkaa dadku sameeyaan. bitcoin address-keedii haddaad u dirto qof ethereum kuu soo diraya lacagtaas way kaa khasaaraysaa. waayo address-kan waxaa loogu talagalay oo keliya bitcoin. address bay leedahay iyada u gaara ethereum. marka waa inaad saa u kala ogaato shabakadaha ay ku kala samaysan yihiin ama ku base garaysan yihiin baa kala duwan. haddaba walletku wuxuu kala qaybsamaa 3. mid waxaa la yidhaha paper wallet, mid waxaa la yidhaha hardware wallet, midna software wallet. marka paper walletka isaga dib iskaga yara dhigo, waa caqabad badan buu leeyahay. waa la print garaynaya waxyaabaha marka ka iska ilow imika markaad xaggan marayso safarkaaga iska ilowka. labada dambe ayaynu focus ka saari doonaa. hardware walletku waxa weeyaan waa bahal yaroo u samaysan sida flash oo kale ah oo ku store garaynaysa ama khaanad ku noqonaysa aad cryptada dhigato. software walletkuna waxa weeyaan kuwan aynu computerada, browserada ama mobilada ku shubano ee applicationska. marka haddaba 3 loo qaybiyo, 3 waa qaababka ay u jiraan ama loo sameeyay walletyada. walletyada haddana 2 loo sii kala qaybiyaa. mid waxaa la yidhaahdaa hot wallet, midna cold wallet. marka cold walletka waxaa soo gelaya hardware walletkii aynu ka soo hadalnay imika iyo kii aan idin lahaa iska iloobo paper wallet. haddaba coldka waxaa looga jeedaa waa wallet aan internet ku xidhnayn. waxaa loo isticmaalaa in lagu hayo cryptooyinka naawilayso inay muddada soo socota ay qiimo badan yeelanayaan oo aad investment ahaan u samaysanayso ama wax aad future-ka wax ka sugayso ay ku noqonayso. marka ka isaga aaminkiisu iska fiican yahay iyadoo uu ka lumo ama uu ka jabo ama deynta lagu yimaado xoog lagaaga qaado mooyaane cryptadaadii si kale looma qaadan karo. marka inta hardware-ka ka dhigato ayaad meel dhiganaysaa safe. haddaba hotka aynu nimaadno. hot walletku waxa weeyaan waa wallet ku xidhan internetka. waxaa ka mid ah walletyadan mobilada ku shubano, kuwan computerada ku shubano, kuwa browserska lagu shubto. waxaas oo dhan internetka ku xidhan yihiin. waa hot wallet. marka hot walletka waxaa loo isticmaalaa in daily transactionska aad ku samayso oo haddaad imika kale meme coins aad trade garanayso ama cryptada kaleba aad trade garanayso ayaad dailygaas aad u isticmaalaysaa. waayo isagu waa convenient, waa wax si fudud aad markiiba suuqa u geli karto, wax u iibsan karto. hot walletku waxyaabaha lagu dhaleeceeyo waxaa ka mid ah inuu internetkii ku xidhan yahay oo security-giisu ay yara liidato. waayo wax kastoo internetka ku xidhan security-giisu way liidataa. haddii aanad adigu intaad mas-uuliyaddaada ka dhigto aanad secure ka dhigin device-kaad ku isticmaalayso, ama mobile ha noqdo ama computer ha noqdo, waa inaad aad u ilaaliso security-giisa oo measureski kale security-ga aad qaadato. insha Allah video baan kaga hadli doonaa sida loo secure gareeyo device-kaaga ama mobile-kaaga si aad iskaga ilaaliso ama u yarayso riskiga lagu hackgareyn karo. meesha kama saari kartid oo marlayba system kasta waa hackable ama waa la hackgareyn karaa, laakiin waad yaraynaysaa. waxaad iska dhisaysaa base-ka ama foundation-ka. wallet kasta wuxuu leeyahay password ka kooban 12 kelmadood
oo ay tahay inaad naftaada ku ilaaliso. haddii ay kaa lunto kiribtadaadii heli maysid, waayo walletkii waxaad ku gasho ma helaysid. haddii aad qof la wadaagtana qofkaasi wuu kaala wada bixi karaa all kiribtada meesha kugu jirta ama waxa kiribta kugu jira wuu dareersan karaya. marka waxa muhiima cid aanad aaminsanayn inaad la wadaagin, inaanad meelaha iska dhigdhigin oo securitygiisa aad u ilaalisaa. waxaan recommendation ku bixinayaa anigu inaad ama password manager secure notekiisa isticmaasho ama note encryptor aad isticmaasho ama intaad qalin book soo qaadato meel ku qorato aad safe dhex dhigato. intuba waa option aad ku ilaalin karto. haddaba walletyada ugu fiican waxa ka mid ah kuwa software-ka ama software based-ka ama browser-ka ku shuban karto ama application aad la soo degi karto mobile-kaaga ama computer-kaagaba. Trust Wallet, Exodus, Phantom, saddexaasa ugu yara fiican markaad eegto walletyada uguna caansan. waxa kale jira iyaguna hardware wallets-ka, waxa jira company Ledger leedah, Ledger oo isaguna sameeya hardware wallet-ka, company-gaas aad eegi doontaan. haddaba aynu gudubno waa maxay exchange. exchange-ku waxa weeyaan meel kuu sahlaysa inaad crypto iibsato iibisana. marka haddaad forex oo kale kusoo jirtay waxaad garan kartaa brokerska. marka exchange-ku waa brokers. exchange-ku markaa wuxuu kaa caawinayaa inaad shabakadii blockchain-ka aad ku xidhanto oo aad ka soo iibsato kiribtadaad u baahnayd. hadhow haddaad markaa kiribtadii aad soo iibsatay aad iska iibinayso ama kiribto kale ku bedelanayso, exchange aad ka dhex samayn kartaa. inkastoo ay walletyada qaar laga dhex samayn karo, laakiin haddana waxa yara qaaliya fee-ga ay ku charge garaynayaan ama inteere waxa la yiraahdaa slippage fee-gaas ayaa yara qaaliya. marka waxa ka fiican inaad isticmaasho exchange-ka si aad swap iyo ama iibsiga ama si iibinta aad u samayso. exchange-yada waxa aad ugu badan scamska, marka waxa lagaaga baahan yahay inaad si aad iyo aad uga taxadirto markaad dooranayso exchange aad account ka samaysato. exchange-yada badankoodu waxay ku marin doonaan KYC process ama inay ku yiraahdaan caddee naftaada, meeshay lacagtu kaa soo gashay caddee, meeshaad ku nooshahay caddee, si loo kala saaro criminalskii, money laundering-kii waxyaabaha sameynayay iyo dadkii caadiga ahayd ee crypto trade garanayay. haddaba exchange-yada ugu fiican ee aaminka waxaa ka mid ah Coinbase, OKX, iyo Kraken. Binance anuma isticmaalo, waan iska yara ilaaliyaa waayo dee ninkii CEO-ga iyo founder-ka ka ahaaba waa tii maxkamadda lala istaagay. marka saan idiin sheegayna scamska aad bay u badan yihiin. marka Binance waan iska daayaano, kuwan kale iska isticmaalaa. saddexdaasina dee kaa badan oo ay jiraan qaar badan oo exchange ah, laakiin mar kasta waa inaad research-kaaga gasho oo aad wax badan ka ogaato exchange-ka aad lacagta dhiganaysid wax ka iibsanayso. intaasaan kusoo koobayaa maanta. waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday videogan. haddii aad garanayso qof kale oo ka faa'iidaya intaad ka faa'iiday, please la share garee videoga, adiguna like-ta noo saar si aan dad badan oo cryptada doonaya inay wax ka bartaan aan u gaadhno. waan idin salaamay.